طبعا حرفدها جوش النولشة محوية هي آدي أقدر جدوتان لكن وحوك كوبين هي سجال حرفضات كلا دوان حرفت كستيلو ديزاين أما لون نقشدي إن أي قفك يعني مسكحدي سهر مرجعسيسو يدو بقول كي باللحدن حرفدها سؤيهين براكتيكال حرفد كوباد أو أتكو قادة دونتان حرفدها جوش النولشة waxay naqon doontaa xirfadda loo yaqaano personal strategic plan xirfadda labaad oo aad ku qaadan doontaan barnaamijka xirfadaha guusha nolosha waxay naqon doontaa xirfadda la yiraahdo personality and leadership style oo macnaheedu loola jeedo baro shakhsiyadaada iyo nooca hogaamintaada xirfadda saddexaad ee aad ku qaadanaysaan xirfadaha guusha nolosha waxay noqon doontaa xirfadda la yiraahdo writing skills ama wax qorista qofku inuu wax qoro xirfadda afraad oo aad ku qaadan doontaan barnaamijka xirfadaha guusha nolosha waxay noqon doontaa public speaking skills ama xirfadda loo yaqaano maaragtaa fagaara ka hadalka xirfadda shanaad oo runtii aad iyo aad muhiimka u ah waxa waaye oo meeshan ku qaadan doontaan xirfadda la yiraahdo critical thinking and decision making oo loola jeedo qofku inuu habka loo fikiro oo barto iyo habka go'aanka loo qaato xirfadda lixaad oo halkan aad ku qaadanaysaan xirfadaha guusha nolosha waxay noqon doontaa xirfadda la yiraahdo negotiation and influencing skills xirfadda toddobaad oo halkan aad ku qaadan doontaan xirfadaha guusha nolosha waxay noqon doontaa xirfadda la yiraahdo listening and problem solving skills xirfadda sideedaad oo halkan aad ku baran doonto waxay noqon doontaa waxa loo yaqaano building extraordinary relationship xirfadda ugu dambaysa oo sagaalaad ee aad ku qaadan doonto xirfadaha guusha nolosha waxay noqon doontaa xirfadda la yiraahdo time management and personal productivity